Trump oo dalbaday Soomaaliya in laga soo saaro ciidamada Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la taliyaashiisa sare u sheegay inuu doonayo in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya, sida ilo xog ogaal ay u sheegeen warbaahinta. Sida lagu yiri warbixinta ka soo saarista ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa Trump ogolaanaysa inuu ka dhabeeyo mid ka mid ah ballanqaadyadii uu ku galay ololihiisa doorashada oo ahayd inuu ciidamada Mareykanka ee dagaalada kala duwan u jooga caalamka uu ku soo celin doono dalkooda. Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa bilowday in qorshooyin ay u diyaariso madaxweynaha, waxaana wadaxaajoodka arrintaasi ku saabsan ka qayb ah la taliyaha amniga qaranka, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidamada, sida ay sheegeen ilo wareedyada. Mareykanka ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 700 oo askari, kuwaas oo ah badankood ciidamo gaar ah oo gacan ka geysta tababarada ciidamada Soomaaliya. Dhammaan ciidamadan ama inta badan ayaa waxaa loo diray intii uu Trump xilka hayay.